بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen maanta dadkii sida waxashnimada ahaa loo weeraray waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistiisa jannadiisa siiyo samir iyo iimaan ka siiyo asxaabtooda eheladooda iyo qaraabadooda kuwii ku dhaawacmayna inuu Ilaahay u fududeeyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa falkii maanta dhacay ee foosha xumaa inuu ahaa mid ay shabaabka iyo nabadiidku ay la beegsadeen shacab Soomaaliyeed aan waxba galabsan taasoo ka turjumaysa cadaawadda ay u qabaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aysan ku wajahnayn xarumaha dawladda iyo dadka dawladda u shaqeeya walaalayaal weerarkan naxariis darrada ah wuxuu ahaa mid lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa nolol maalmeedkooda caadiga ah waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha amniga kuwa caafimaadka shacabka Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay sidii ugu soo gurmadeen una badbaadiyeen dadkooda waalaha ah oo qaraxan waxashnimada ah ee dhibaatada ka soo gaartay waxaan shacabka Soomaaliyeed aan ku boorinayaa aan ku adkeenayaa inay garab istaagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan siiyaan dadka waalahooda oo maanta ku waxyeeloobay qaraxii waxashnimada lahaa oo ka dhacay magaalada dadkaas oo qaarkood isbitaalada ay yaalaan waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed inaan gurmad degdeg ah u sameeyno dadkaas qofkii ku tabaruci kara dhaqaale iyo qofkii ku tabaruci kara dhiig waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga banaystay naftooda iyo maalkooda carqaladeynayana inay Soomaaliya hesho dawlad keenta amni difaacdana badooda cirkooda iyo dhulkooda walaalayaal waxaa qarxi maanta dhacay aan ku weyn dad badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa sidaas darteed waxaan ku dhawaaqayaa saddex maalmood oo baroor diiq ah iyo calanka jamhuuriyadda in hoos loo dhigo waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga banaystay dhiigooda iyo maalkooda una taagan inuu carqaladeeyo nabadgelyada waxaan uga adkaan karnaa cadowgaas inagoo mideenna maskaxdeenna maalkeenna iyo muruqeenna meelna iska dhigno kala qaybsanaanshaha aan u adeegayn danaha qarankeenna ugu dambeyn waxaan hay'adaha amniga farayaa inay adkeeyaan nabadgelyada si ay uga hortagaan dhagarta al-shabaab annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan ahmiyadda koowaad siino sidii aan u soo celin lahayn ammaanka dalka wabilaahi tawfiiq